ayaan lu isla markiiba waxaa yimid baabuur kolonyo ah oo saaran yihiin mas-uuliyiin dowladda ka mid ah iyo saraakiil Etoobiyaan ah. haddaan meeshaas xuso dadka mas-uuliyiinta dowladda ka socday waxaa ka mid ahay gobornatoorihii gobolka Maxamed Deere gudaha u soo galeen idaacadda soo galeen Tosbay waxay ka yimaadeen ifka xalan xagiisa ka yimaadeen jidkii albaabka laga furay baabuurtii kuwana way la soo galeen kuwana banaanka laakiin dad aad fara badan waayo aad u hubaysan waxaa ka mid ah Maxamed Deere Allah naxariisto waxaa ka mid ah Janaan Cabdi Qaydido markaas ahaa taliyaha booliska Soomaaliya Maxamed Deere gobornatoorka gobolka waxaa ka mid ahay nin wasiir ahay oon u malaynayo inuu ahay wasiirka amniga Darwiish la dhihi jiray ama wasiirka amniga oo ahay ama nabad sugid joog inuu markaas nabad sugid ahay labadaba waa noqday iyo inuu wasiirka amniga ahay ma garanayo laakiin mas'uul weyn uu ahayo nin waqtiga xamar caanka u ahaa nin caanka oo dadka la xiro iyo waxa ma arkaysa hawl balaaran ku caan baxay oo qurux badnay waxaa la socdaa Janaan Gabre xagga Etoobiyaanka intaan ka garanayo ninkii Gabre ahaa Cornel ahaa dadka gobolkooda Janaan ay dhihi jireen laakiin dib markii la xirina waxaa la sheegay inuu ahayn inuu Cornel ahaa laakiin waqtigaas Janaan Gabre ayaa loo yaqaan magacaas Soomaalida la baxday isla markiiba way soo baxeen waxay soo istaageen xafiiskii aniga aad u taqaanay koonaha ahay labadii compound dhexdooda kii idaacadda iyo kii administrationka barxadii bay soo istaageen laakiin de inteynaba soo dhaafin albaabka isla markiiba report wuxuu gaaray mas'uuliyiinta dhan anaga dhawna gaaray mas'uuliyiintan report gareena Cali Imaan Cabdi Xasan oo soo baxeen ayagana meeshii baan soo wada istaagnay marka iyagu markii yimaadaan la soo baxay waxa ma dhihin meesha istaageen kaliya already idaacaddu way xiran tahay ciidamada way soo galeen qol walba iyo meel walba way galeen ciidanku shaqo kala goonihi wataan operationkan wuxuu marka u muuqdaa ayaan lu nimankan saaki markay yimaadeen akhriskana waxa weeyaan qola gooni ah branch gooni ah oo sida midna nabad sugid oo kale ama gobolka kale whatever wixii ay noqon kartaba barnaamijkan qola gooni ayaa rabtay inay fuliso midna saakay oo kale ku imaanay soo laabashadii amarka la siiyay waxay u muuqataa mid ballaaran oo dawli ah oo la iska kaashado inuu yahay qorshe weyn ayaa markaan lagu socdaa sidaas awgeed markii qolay u galeen mas'uuliyiinta markay meesha imaanayaan already ciidamada kor ka xiran marka laga soo tago ciidan aad u malaysa inay abaabulan yihiin oo qiyaasii kontameeye ah oo laba nin kabtan yahnina oo gaashaanle hoose yahay ay wataan oo habaysan oo special branch ah oo Soomaali Etoobiyaan ay la socdaan Soomaalida aan calal u sadhihi jirnaan ay la socdaan ayaa shaqada gudihi wada